wadaalika walaalayaal ramadaan dadku saddex qaybood ayay u qaybsamaan sida imaamu lghazaali raximahu llahu tacaala kitaabkiisa ixyaa culuum uddiin uu ku sheegay saddex ayay dadku ramadaan ay u qaybsamayaan soomka qaabka ay u soomayaan sawmu alcawaam wa sawmu alkhawaas wa sawmu khawaasi alkhawaas waxa uu yidhi imaamu lghazaali raximahu llahu tacaala soomka ramadaan dadku ay sooman yihiin saddex qaybood weeye soomna waxaa la yidhaha sawmu alcawaam waa bulshada inta badan qaabka ama habka ay u soomaan soomkaas wuxuu ku tilmaamay oo inta badan bulshadu qaabkay u soomayaan wuxuu ku tilmaamay imaamu lghazaali raximah llahu tacaala waa alsawmu can shahwatay اlbaطni wاlfarji faqad waa inuu qofku ka soomo shahwadii caloosha iyo farjiga cawrada bis labadaas bis inuu ka soomo yacni cunitaankii iyo cabitaankii unbuu iska joojiyey cunitaankii iyo cabitaankiisiina wuu iska joojiyey xaaskiisiina maalinta ramadaan wuu ka fogaaday oo lama jiifanayo intaas bis wey soomkiisu hadduu arko laakiin khayaanada dadkii waa khayaanahaya bir ramadaan iyadoo la joogo beenta uma aba yeelayo beenta hadduu jaanis ku helo uma aba yeelayo waa ramadaan iyo waa bil kale kalama jecla waad sooman tahay xisaabba uguma jirto xanta iyo acraadu lmuslimiin iyo dadka cirdigooda iyo sharafkooda oo meel looga dhaco shaqadiisa ma aha xisaabtana uguma jirto cuntada iyo cabitaanka bisuu ka soomahay cuntada iyo cabitaanka unbuu ka soomahay wixii ilaahay uu xarimay ilaahay ugama baqayo ilaahayna kama xishoonayo bisha ramadaanna maba u dhalanba inuu cuntadii iyo cabitaankii ka soomay maaha wax kaleo uu samaynayo oo tilaab ah maba jirto soomkaas noocaas ah waa soomka nabigeennu uu sheegay salى اllahu عalayh wasalam xadiiskii bukhaari uu warinayey man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilahi xaaja falaysa lilahi xaaja fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu nabigeennu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi qofku hadduusan hadalka beenta iyo dembiga uusan ramadaanka ka teginin ilaahay dan kama lahaa cuntadiisii iyo cabitaankiisii uu ka tegey ma danaynayo ilaahay dembi dhaafkii loo dembi dhaafayay mu'miniinta ma helayo dadka mu'miniinta habeen walba qayb ka mid a ayaa ilaahay cadaabkiisa ka xoreeya kuma jiro dadka la xoraynayo kuma jiro dadka malaa'igtu ay u dembi dhaaf weydiinayso malaa'igtu u ducaynayso kuma jiro dadka ramadaan ducadooda la aqbalayo kuma jiro wixii khayrahoo ramadaan lagu sheegay waajibkii unbaa ka dhacay bis waajibkii ramadaan unbaa ka dhacay laakiin ziyaadaadkii iyo nafaxaadkii iyo khayrkii ilaahay dhex dhigay waa ku qaday addoonkaas faman xurima faqad xurima alkhayra kullah qofkii ramadaan ku qada khayr oo dhanaa lagu qadiyey ramadaan ilaahay laguma qadiyo subxaanahu wa tacaala qofkaasi marka waa qof qadayb waa qof baahan oo ramadaan ka baahan waayo qofka noocaas oo kale ah marka taas waxaa la yidhaahaa waa qismiga uu sheegay imaamu lghazaali raximah llahu tacaala waa sawmu alcawaam qeybta labaad waxaa la yidhahaa sawmu lkhawaas dad gaar ah oo ummadda ka mid oo ilaahay ka baqayo is ilaalinayo kuwa qaabka iyagu ay u soomayaan waxaa weeye waa alsawmu can jamiici almuxaramaat muxaramaadkii oo dhan ay ka soomayaan muxaramaadkii oo dhan been ma sheegayo ummaddii muslimiinta ma khayaanayo muslimiintii cirdigooda iyo sharaftooda meel ugama dhacayo ma xadamanayo indhihiisii way sooman yihiin oo cawraadka kuma fiirinayo dhegihiisii way sooman yihiin xumaato kuma dhegaysanayo lugihiisii way sooman yihiin meel xumaataa uguma soconayo gacmihii way sooman jirhkiisii oo dhan ayaa ilaahay dartii isu dhiibay cabdun lilaahi kulluh waa addoon ilaahay kulligiis addoon ilaahay oo u wada hoggaansamay ya muxaramaadkii oo dhan ayuu ka soomahay kaas waxa weeye waxaa la yidhaha sawmu lkhawaas
waxaa jira kuwaas kuwo ka sii darajo badan ee la yidhaha sawmu khawaasi lkhawaas waa dadka ugu sarreeya addoommada ilaahay martabadooda dadka ugu sarreeya wa huwa sawmu lqalbi camaa siwa allah kuwaas qalbigii xibnahoodii intay ka ilaaliyaan xaaraamta ayaa qalbigiina ay waardiinayaan qalbiga xataa in xumaanta uga soo dhacdo ilaahay mooye wax kale kuma fekerayaan cadamada ilaahay ilaahay inay ka xishoonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa intuu leegyahay inay sawiranayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa qalbigooda uga jira wax kale way ka soomeenba xataa qalbigii waardiisanayaan kuwaas bas wax la heli karo waa awliyaa uraxmaan sha'nigooda dadka tegey wey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa maqaamaadka waaweyn ku leh dad qof qalbigiisii waardiinaya oo qalbigii u kontaroolan yahay maxaa qalbigaaga kaaga jira saacaddan maxaa qalbigaaga kaaga jira yaa waxaan ilaahay raalli ka ahayn miyaa qalbiga kaaga jira dhahaya oo qalbiga xibnihii intuu ka soo tegey ayuu qalbigii waardiinaya marka arrintaasi waa arrin yacni dad un ilaahay uu karaameeyey un hibo ilaahay uu siiyo ilaahay uu bixiyo wey subxaanahu wa tacaala hum darajaatun cinda allah addoommada ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ilahay agtiisa way ku kala darajo sarreeyaan hum darajaatun cinda allah ilahay agtiisa dadku waa dabaqaad iyo heerar iyo mustawaad kala duwan ayay marayaan dadku marka saddexdaas waxaa la dooni qaybta aad noqonayso adigu isweydii adigaa is-yaqaana inaad tahay qolada ka soontay uun caloosha iyo farjiga uun laakiin wax walba xumaataa iska dabaalanaya inaad tahay oo aad ku qaday ramadaan oo uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay ma danaynayo kuwaa soonkoodii kuwaa inaad ka mid tahay iyo kuwa ilaahay nafaxaadkiisa iyo raxmaadkiisa iyo dembi dhaafka uu ku da-ayo oo cadaabka ilaahay laga xuraynayo inaad ka mid tahay adigaa is-yaqaana hadba waxay ku xihan tahay sida aad u dhaqantid adugu sidaad u dhaqantid iyo sida aad wakhtigaaga uga beddeshid iyo sida aad tilaab u qaadid ayay mar walbaba ay ku xihan tahay